waxaa magaalada johnesburg dalka koonfur afrika ku nool kumanaan Soomaali ah kuwaasoo ka soo barakacay gudaha dalka Soomaaliya. waxaa laga dareemayaa suuqyada magaalada Johnesburg u diyar garowga maalinta ciida ee maalmaha qura inaga harsan. bulshada ku dhaqan magaalada ayaa ku jira dukaamaysi kuwaasoo isku diyaarinaya ciidul adxa. Soomaalida Johnesburg ayaa inta badan ka ganacsada tuulooyinka ku hareeraysan magaalada. waxaad arkaysaa dhalinyaro fara badan oo ka imaanaya xagga iyo tuulooyinka kuwaasoo magaalada u yimid sida ay ugu iibsan lahaayeen waxyaalaha ay ugu talagaleen ciida. isku soo wada duuba waxaa maalinta jimcaha ee fooda inagu soo hayso oo la rajaynayo inay tahay maalinta ciida. Soomaalida ku nool magaalada Johnesburg ee dalka koonfur Afrika ayaa la hadlay TV-ga caalamiga Royal 24 waxayna u sheegeen inay ku noqon doonaan sanadka soo socda hadduu eebeydmo Soomaaliya nabada ayna ku ciidin doonaan. Maxamuud Cabdullaahi Xuseen Aboke, xafiis wareedka TV-ga caalamiga Royal 24 magaalada Johnesburg ee dalka koonfur Afrika.